السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن أو وناكسن مال كستو نقد داونيسان ومدى الصومالية دي حل والبقى جوكتان بحلكان وصمودا ميديا عبرتا تيبكا عن كل حي فضلا هدي على هوري سبسكرايب وصارين على مدى عصان كأما بجدودن فرتا لكوسي سي هالكاسي نقلص عطو وحوال بو برنامجيا وان سوق اليو هدي ابو يدمو سيدو كلا لايك صار او شير جري سي وقارتو ورالاها كلا maalin kaste mowduuc kasto muhiim ah oo bulshada u soo baahino waxa sidoo kale la in ka codsanaya in qaybta commentiga aad soo qortaan adinkoo markaasi talo tusaalo wax ka bedel barnaamijyada sidoo kale halkaan ugu la wadaagayo waa hagaag aad ayaad u mahadsantiin nabadgelyo naxariis dushiina haato soo dhawaada mar kale maanta waxaan doonayaa hadii eebo uu idmo inaan ka hadlo mowduuc muhiim ah oo akhriya adduunba ummadeena Soomaaliyeed ah mid aad muhiim ugu ah walaalayaal mowduucan raba inaan ka hadlo waxa weeye mowduuc ku saabsan diinteena islaamka iyo dad badan oo Soomaaliyeed oo runtii diinta islaamka ka baxay ama qaatay diimo kale qaarna ay yihiin diin laawayaal markii meesha ay ka baxday dawladda dhexe ee Soomaaliya oo dalka burbur u galay waxa lumay dhammaan waxyihii adeegyadii bulshada haday ahaan lahayd dhinacii haykalka sharafnimada jiritaanka dalnimo sidoo kale waxaa naga lumay xaduudihii hawadii badii ciidamadii haykalkii iyo jiritaankii oo dhan ayaa naga lumay taas mid la mid ah dadku waxay ku dhacday mar hadii ay dawladii burburtay in dadku ay u hayaamaan wadamo shisheeye taasi oo ay ka raadiyaan nolol naf iyo nabadgelyo hadba meesha ay ka heli karaan taa bedelkeeda marka waxaa dhacday in dadkaas ay u gacan galeen dad aan diinta islaamka haysanin oo qaar dad Christian ah u badan intooda badan ama dadka Masiixiyiinta la yiraahdo halka kuwa kalena aysan diimaba haysanba waxa la tilmaamaa ummadeena Soomaaliyeed ama la tilmaami jiray inay ahaayeen ummad boqolkiiba boqol muslim ah sunni ah marka kadib hadii Shaafiiciye iyo waxyaabo kale oo yar ay isku khilaafaan aysan ahayn wax weyn laakiin rugniga koobaad ay tahay inay yihiin dad muslim ah oo sunniyiin ah taa bedelkeeda waxa dhacday in hadda baraha bulshada ay ku soo bateen dad gaala ah waliba gaalnimadooda bas maahan Masiixiin inay yihiin xataa diinta islaamka iyo diinta Kristaanka iyo diin kasta aan aaminsanayn dadkaasi waxay u badan yihiin inta badan waxa la yiraahdo mulxidiin waa dadka aan aaminsanayn jiritaanka Alle sideeda banaanba waxa baraha bulshada aad u isticmaalo ama dad mulxidiina oo diinta islaamka iyo midda Kristaanka midna aan haysan oo Soomaali ah oo af Soomaali yaqaano marmarka maalmaha kamida waxa la kulmay group magaciisa lagu qoray walaalaha isjecel ku soo dhawow nabadgelyo iyo naxariis iyo wax la mid ah markii groupkaasi aan arkay kadibna waxaan oo la igu darayna waxa la igu yiri soo dhawow mudane halkan waxa ku sugan dad muslim ah iyo kuwa aan muslim ahayn oo dhamaantood Soomaali ah taajab ay igu noqotay dad Soomaali ah oo af Soomaali ku hadlayo oo diinta islaamka ku dhashay oo ku barbaaray oo inta la ekaaday in hadana ay diinta islaamka ka baxaan hayeeshee hadana mararka qaar way dhacdaa oo adduunka dhan dadku ma wada aha dad muslimiina laakiin taa bedelkeeda hadana waxa la yaab kale igu sii noqday in dadka asaga ay yihiin kuwa aan diin bahaysanba haday ahaan lahayd muslim haday ahaan lahayd masiixi haday ahaan lahayd yahuud majuusi wax la mid ah waa dad mulxidiina oo waxba haysanin waxay inkirsan yihiin gabi ahaanba jiritaanka Alle dadkaas markii aan la kulmay kadib waxaan go'aansaday waxaan iri maadaama yihiin dad Soomaali ah oo af Soomaali ku hadlayo ama halkan ajir ka raasata oo isku dayda dadkani inaad naar ka badbaadiso oo diintooda macaaneed aad dib hadda u wacdiso ama is aragtaan oo doodaan ay dib u soo laabtaan walaalayaal waa dad diinta aad u yaqaan qaarkood runtii oo markii ay yaraayeen malaha la baray mararka qaarna waxaan isiri xujo ayayba u barteen diinta oo meelaha ay isticmaalayaan inta badan dadka waxyaabaha ay shaki ku galiyaan waxa kamid ah jiritaanka Alle waxidnimadiisa iyo abuuritaanka qofka halkaas dadka marka ugu horeysa ka soo galaan waa dad marka aad u doodayo oo diinta islaamka markii hore bartay qaarkood oo Ilaahay furaha markaasi uu haleeshin waayay oo qalloocday marka waxaan inkaga digayaa haddii dadkaasi aad la kulantaan walaalayaal waxba hala doodina
runtii haddii laga yaabo qof aan diinta islaamka aad u aqoonin ama iimaankiisa daciif u yahay waxaa xaqiiqo ah dadkaasi inay galaafan karaan. sidaa darteed haddii aad aragtaan barnaamijyo ay ku qoran yihiin walaalaha isjecel wax la midka diinta islaamka, diinta faafinteeda, wax noocaasa haddaad aragtaan waxba ha ku biirina. diinta islaamka base haddaad aragto oo isku hubto oo page ah oo dad islaam oo taqaano oo culimo ah, walaal ku biir. laakiin yaan lagu hoosgelin. waxaa jiro dad badan oo kiristana, kuwa mulxidiina, kuwa diin aan haysan oo magacyo qurqurxan la baxay kadibna doonaya shabaqa inay kugu tuuraan. dadkaasi runtii inkastoon sawiradoodan arag, laakiin waa dad dhalinyaro u badan, waxayna joogaan qurbaha intooda badan. waxaa kaloo jiro dad ayagana diimahaas haysto, diin aan haysanin oo ay fasahaadiyeen intooda badan oo wadanka gudihiisa joogo laakiin isqariyo. kulligood inta badan way isqariyaan, laakiin baraha bulshada markii lagu wada hadlayo waa dad aad u hadlayo dood badan. marka waxaan kaga digayaa inaad ka digtoonaataan, waxba hala doodina, daniina ka raacda. waayo waxaan ogaaday inaysan dad hanuun, ilaahay hanuun inuu qoray waa laga yaabaa. man yahdillahu fa huwa almuhtadi waman yudlil falaa haadiya lah. waxaa weeye haddii ilaahay hanuun u qoray way soo hanuuniya, haddii uusan u qorinna ma hanuunayaan. laakiin iyaysan galaafanin, iyaysan ingalaafanin, iska jira, ka digtoonaada, iyaysan shaki idin gelinin. diinteenna macaan iyaysan shaki idinka gelinin. waa dad runtii xataa dadku hadday kristan yihiin waa lala doodi karaa oo jiritaanka alle ayayba aaminsan yihiin oo wax badan bay aaminsan yihiin. laakiin dadkani waa dad mulxidiina, waxayba inkirsan yihiinba jiritaanka alle. sidaa darteed barnaamijkaasi ayaan isla jeclaaday maanta inaan idiin soo joodiyo. aad ayaad u mahadsantihiin. wixii fikrada ood barnaamijyadaad ka haysaana ila wadaaga. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. salaamullahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.